waxa beennimadii xalay ka dhacay duleedka degmada Balugubadle gaar ahaan tuulada Biriiqa oo u jirta 5 kiiloomitir Balugubadle kagana beegan dhanka waqooyi bari dil ay geysteen ciidamada saldhigga booliiska ee Balugubadle waxaanu ka dhacay abaara salaadii maqrib kadib ciidamada ayaa waqtigaasi howlgal dabagal oo qaadka kontrabanka ku jiray ay yeeshee sida la sheegayo waqtigaasi laguma qaban gaarigan ay ku dhinteen labada nin qaasarna gaarigan ay ku geeriyoodeen labada wiil ayaa noociisu ahaa Fitis waxaanu gaarigaasi u soo jeeday dhanka caasimadda Hargeysa haddaba waxaanu habeennimadii xalay la kulanay wadihii gaarigaasi Fitiska waxaanu si kooban nooga waramay sida ay wax u dhaceen halkan aan ka baxnay goor fiidowgiya baqri waxaan ku sii tukanay halkaan ila shulku naga heli doono yar sukadeeda anagoo iska soconayno oo afar nin baan ahay afartayadii nin anagoo iska sheekaysanaya ayaan barsaasto nagu bilaabay taa qofna hormaray iyo qof gacanta saanay iyo qof iskaaga tusitoon mu jiro ya kaway marka inankii aniga xaggayga xigaanunki gaariga timaan garanaysaa daaqada dhinaca inankii iga xigay halkaas midig misabada daaqada bidix anu midig baa saarnaa oo ka wada gaariga daaqada bidix inankii saarnaa halkaas ka dhacdo halka fadhida halkaas soo qabadka Allahumma salli ala Muhammad daaqada aniga iga dambaysa ee tarawalka ka dambaysa inankii fadhiyayna xaggaas ka soo dhacdo wata halka fadhiisata feeraha marka waa ina ka dhintay daaqadan bidixda xagga hore ee tarawalka ku beegana xagga hore garanaysa inankii fadhiyay yaa anigii gaariga waday waa badbaadno ilaahay waa na garmariyay rasaasta ya kaway marka ay ahayd xaggaas waxaan anagu aragnay indhaha afartayada indhahaagaas ay qabteen nin qura xitaa maana indhahayguna qaban qof iskaaga tusay qof wadada loo istaago yiri dableeskii bilmetrada amaarad maana arag rasaastu ma ku war xalay Abdi Gamas Rashid waxa uu ku geeriyooday gudaha cisbitaalka Balugubadle halka uu marxuum Najax Maxamed Xaaji Xasan loo qaaday dhanka magaalada Hargeysa waxaanu isla habeennimadii xalay ahayd isna ku geeriyooday magaalada Hargeysa maamulka gobolka Awd oo aanu isniin la wadaaga warbixintaasi ayaa noo suuragelin sababtoo ah waxa ka daayay roobab waaweyn jida u dhaxaysa Balugubadle iyo Hargeysa sababta keentay dilkan ayaa sidii ay u fuli lahayd awaamirtii xukuumadda Soomaaliland ku aadaned sida looga hortagi lahaa caabuqa xanuunka COVID-19 waxaanu keenay joojinta qaadkan dib kale oo ah dil Cabdiraxmaan Samariye TV-ga caalamiga oo Cable TV xarunta gobolka Awd Balugubadle kastoo idaafaha caalamka ay ka joogaan ugu bushaarinaysa in iyaga oo jooga guryahooda ama base goobahooda shaqo ay heladooda iyo asxaabtooda lacagaha ugu diri karaan si fudud adiga oo isticmaalaya abka Talk Remit sidoo kale waxaa lacagaha lagu soo diro ku heli kartaa adeega e-dahab